السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الناصر عبد العزيز مالي جنك لو مركله مارتي مركان جعلنا كهذا هدي على إرادة أوسي موديل كي waxa uu yahay horey waxaan ka soo hadalnay macnaha device-ka ama shay'aasha ugu muhiimsan networking-ka marka laga hadlayo si gaar ah waxaan u soo hadalnay switch-ka iyo hub iyo router-ka iyo dabcan habka oo kale oo kasii horeeyay iyo qaababka ay u shaqeeyaan qaababkaas iyo in badan oo kamid ah networking-ka waxay ku salaysan yihiin OSI model-kan OSI model-kan runtii waa wax weyn oo maaragtay oo ka caawiya networking marka laga hadlayo waxaana ku talinaa qof allaale qofkii rababa inuu networking wax un ka barto inuu OSI model-ka iyo qaabka uu u shaqeeyo inuu maaragtay si fiican usii fiiriyo inuu isku ekaan xataa meeshan macnaha hadda waxaan ku sheegi karno waa wax kooban iyadoo maaragtay markasta aan isku dayay in aan koobo mataqaana waxaan ka hadlayo waayo dad badan boorn ku dareemay dhinacadii mataqaana casharada dheer labo duubitaanka waqtigiisa oo gaaban intaas marka laga fiiriyo aad u koobo aan isku jeclahay insha Allah taala laakiin haddii qof wax uu si fiican u fahmo oo rabo network-ka OSI model-ka waxa ugu muhiimsan oo maaragtay qofku inuu fahmo ay tahay waay asalkana OSI model-ka waxyaabo badan oo maaragtay oo ka caawiya networking-ka ama computerada in generalba markii horeeto waxay ahaayeen matalan haddii computerada la rabo qolo shirkad inay maaragtay ay computerada networking ku samaysto oo wada xirto isku xirto waxay ahayd awal inay hal shirkad kaliya ka soo qabto wax walba waxay ahaayeen proprietary wax walba keligood ahaayeen macnaha shirkadaas kaliya bal iska dhaafe printerka macnaha waa ina matalan hadda IBM ka soo gaatay computerka waa inuu IBM ahaadaa printerka radaada waa inay IBM ahaadaan xataa warqadda gelaysa waa IBM macnaha warqad baa ugu talagalay taas macnaha marka waxay keenayeen in computer shirkad A haddii ay IBM ka gato shirkad B na ay ka gato matalan digital corporation equipment corporation kale ama wax kale ay ka gato meel kale ay ka gato labadooda sina isuma fahmi karaan dib weyn ay keentay waxaaba dhici karta shirkad markino inay mataqaanaa shaqadeeda qayb kamid outsourcing oo u samayso oo shirkado kale ay tiraa bal iisoo samee macluumaadkii qaabay ugu gudbisa male wixii ismagal xataa waxa oo mataqaanaa ama cajaladihii ama wixii lagu kala qaadi lahaa isku mid maahayn labay kala ahaayeen waxaa dhici karta in maaragtay shirkadiiba laga yaabo mataqaanaa inay dabcan inay ka wareegto ay ku qanci weyso shirkadan waxeedii inay burburis ay noqonay waa millions ay gelisay weliba waqtigaas qalabka computerka intaan aad uga qaalisanaa marka intii oo kale dab inay u gelisay ahayd wareer ay ahayd marka wixii macnaha waxay noqdeen jasiirado kala xirxiran ay noqdeen waxaa laga yaabaa inay shirkadan oo dhismahan leh in maaragtay ay local area network oo computerada isku xiran yihiin okay wax walba yihiin dhinaca kale haddii laga fiiriyo dhismahan ku dhegan shirkad kale taa leh ama qayb kale oo ayadii kamid oo mataqaanaa oo laga yaabo inay si ulala shaqeyso wuxuu marka ma wada shaqeyn karaan waxay qasab noqotay marka in loo helo qaab ay u wada shaqeyn karaan bal haddii maaragtay xataa shirkad kaleto markino qalabkiisa ay maaragtay yaalaan isku dhismaha naftigiisa ay yaalaan macnaha waxay noqotay in aysan u wada shaqeyn karin tan marka waxay keentay in loo helo standard markino oo ka wada dhexeeya kulligood hay-adda maaragtay standardka adduunka markino international organization for standardization marka waxay samaysay qaab markino ay loo kala jejebinayo network ay soo shaqeynayo min ilaa laga bilaabo qofka markii matalan computerkaas click aa samayso ilaa iyo halkaas kale computerkaas kaleeto oo gaaraya macnaha dad matalan server computerkana ku jirta webpage garacday www.shabelle.com ama something whatever google.com wixii marka serverkaas baalkan aad request u dirtay inuu pagekaas kugu soo diro serverka kugu soo dira marka adigu wax aad samaynayso waxaa laga yaabaa inaad clear aad samayso personally ma dareysanid laakiin haddana computerkii waxyaabo badan shaqooyin badan oo sameynaya shaqadaas marka lasii jebiyey waxaana loo sii kala jebiyey ilaa iyo 7 macnaha bahalkan muxuu ahaay 7 dabaq oo maaragtay mid walba shaqo gooniya oo qabto loo kala jebiyey kaas marka waxaa loo bixiyey OSI model oo magac ahaan kasoo jeeda open system Wikipedia qof walba inuu yaqaan taas open system interconnection model waa ku talna inay historygiisa xataa Wikipedia xogaa kasii aqrisaan OSI marka magacaas OSI-ga meeshaas oo ka imaana qaabka loo kala jebiyey mid walba marka shaqo gooniyo qabtaa tan waxay fududeysay in qalabkii kala duwanaa ay wada shaqeyn karaan bal xataa qalabka marka laga tago shaqooyinka dadka qabanaya aad iyo aad ugu fududeysay laga bilaabo qofka matalan networking markaas ku shaqeynaya ilaa iyo qofka maaragtay xataa programka soo sameynaya halkii dadka programmerska markii hore markii ay sameynayaan matalan game oo kale oo sameynayo ay ahayd inuu wax walba ilaa iyo mataqaanaa qaabka loo mataqaanaa uu marayo khadka fiilada ilaa iyo intaas dhinac walba wax walba inuu ku xisaabtamo
hadda kuma xisaabtamayo keliya asaga application bes markino layerskan macnaha toddobadan dabaq oo loo kala qaybiyey keliya wuxuu ku xisaabtamaa midka ku dhegan mid walbaa shaqo gooniyo qabtaa toddobadan mid walbana waxaa muhiim ah keliya in ay isfahmi karaan kan ka sarreeya iyo ka ku dhegan idaasan macnaha wax shuqul ah macnaha kuma laha kuwan kaleeto oo maaragtay meesha dheer jira matalan anagoo wada sheegi doona xabad xabad u kala mari doona haddii matalan aan application ka soo qaadno application ay nooc ay aragto isticmaal adiga nooc alaali nooc aragto ha noqotee muhiim u aha meesha aad ku dirayso hadday wireless tahay haddii ay tahay bahalkan matalan muxuu ahay fiber optic hadday tahay hadday fiilada cover tahay uma kala duwana adoo mataqaana androidka ka isticmaalaya adoo ka isticmaalaya bahalkan muxuu ahay matalan laptopkaaga windowskaaga linuxka no matter whatever ayaa waxaa isticmaali kartaa application matalan skype ku kaleto waa iska isticmaali kartaa keliya qolyahan sameynaya waa laga yaabaa inay ku fakaraan ma linuxa loogu talagelaa ma waxaa loogu talagalaa bahalkan android ma waxaa loogu talagalaa windows laakiin qaabka uu gudbayo u soconayo wax saameyna kuma lahan waxaana sababaya tan dhinaca kale shaqada oo dadka oo mataqaanaa networking ku shaqeynaya aad iyo aad ay u fududeysay waayo markii uu rabo troubleshooting oo kale marka sameynaya ama cilad ay jirto oo kaleeto matalan cilada si fudud ayuu qayb u qaadi karaa by the way macnaha ciladaha nooca ugu badan almost in ku dhow 70% iyo ka badan oo maleynaa 75 in ka badan haddaysan kaba sii sarreyn macnaha inta badan ciladaha oo networking waa physical layerka waa macnaha fiiladoo dhinaca u baxsan iyo wax lamid ah waa macnaha fiilaha laysan iyo wax lamid camal marka taasu marka oo qofkii sameynaa midda kood wuxuu fiirinaa kan uu fiirinaa haddana wuxuu fiirinaa data link wuxuu fiirinaa inta dabcan waa sidaan isu sheegay switcheska iyo meesha ay ku shaqeeyaan waaye kadib waxaa waa networking ip adiga waxyaaba saas oo kale taa marka aad iyo aad u kala fududeyso waa toddobadan dabaq waa muhiim aad in macnaha sidii isugu xigaan iyo sida maaragtay la yiraa macnaha loo kala barto acronomy ay leeyihin marka lagu garan karo midka ugu sarreeya waxaa application layer alaha kala presentation layer kala session layer transport layer network layer iyo data link layer iyo waliba physical layer mid walba wuxuu leeyahay macnaha haddaa rabtid sida ugu fudud barakta waxaa jira acronomy meeshaan hadda mar dhaweyd aan kusoo koobiyey sorry pagean netka kasoo fiiriy haddaa ku qortid googlaha ka qortid acronomiga waxay u baahan tahay inaa heli doontid insha allah marka aduutiin baws garaynaan samayn doonaa laakiin anyway muhiimadda waxaa ogaataa mid walba shaqada markay qabanaya waa wada shaqeynaya qaabka u wada shaqeynaya waxaa waaye qofka asalka marka aad computerka isticmaalaysa adigu waxaa rabtaa data inaad dirta unbaa rabtaa taasaa muhiimka ah laakiin waxa baxaya datadii keli maaha mid walba layer kasta oo soo maro wuxuu ku darsanaya wax asaga uu yaqaano oo gooni uu qaab u xisaabi karo waxaa la yaqaanaa dhinaca kale layer kale matalan computer halkan axmed aa fadhiya axmed waxa waaye waxa uu xiriir computer oo la sameynaya caasho oo halkan fadhisa axmed marka uu soo diro asaga muhiimadiisa waxaa laga yaabaa inay in yata hallow oo kaleeto oo soo qoray macnaha hallow keliya soo qoray oo mataqaana laga yaabay msn wax unba ugu soo qoray msn skype meel ugu soo qoray caasha hallowdii ujeedaa laakiin markii hallowdii computerka cali ka soo baxdo waxa waaye kow horta midda kooda applicationka soo mare wuxuu ku darsanaa herres wax la yidhahdo qaab oo asaga wuxuu ku darsanaya jira presentationka soo mara asna wuxuu ku darsanaa herreska mid walba ujeedaa application header presentation header session header mid walba wuxuu ku daraa header iyo qaarkood dabcan footerna waa lagu daraa datadii marka la diraayo markaa gadaal fiiris marka ugu dambeyso oo wireka ay dhex marayso inta waxaan ujeednaa data halkan datadii waaye intana waa intaaseed inta la rabo waa intaan laakiin waxaa muuqata intaasoo overhead inay macnaha ay kusi dartay weliba kan oo macnaha taylor intaan inay raacday oo macnaha waxyaaba badan oo sida caadiga aan datadii kamid ahayn laakiin maala yacni maaha macno weyn ku fadhiyaan mid walba waxa waaye datadii kala hagideedii qaabkay u marneed waxay tahay macnaha la-aantood waxaan ma dhacdeen waa wax lagu heshiiyey shirkad walba markay sameynaysan waa inaan intaas qalabkeedu inuu fulin karaa waa qofka networking ka shaqeynaya asna waa inuu intaan marka uu fahmi karaa iyo qaabka u shaqeyn karaa aan usoo laabano mid walba marka muxuu qabtaa application layerka ugu horeeya application dabcan waxaa laga yaabaa dadka markay maqlaan maskaxdooda ku socda microsoft word iyo office iyo waxyaabaas xaqiiqatan haddii network ayaga isticmaali lahaayeen oo kuwa network u baahan ay yihiin way kamid noqon lahaayeen dhinacana macnaha applicationna waa dabcan any program oo networkinga isticmaalayo waxaa meesha waxaan kusoo koobay matalan kuwa yar oo hadda kamid a matalan http-ga ftp-da iyo smtp xataa file diraysa oo kaleeto matalan hadda web server markino fiirsanaysa iyo wax lamidka oo kaleeto dabcan application layerka presentation
presentation layerka asiga waxa waaye markay maskaxda kusoo dhacdo automatically maskaxda waxaa gelisaa turjumaan macnaha haddii presentation uu xun yahay ma fahmi karo qofkan wax allaale wixii inta laga soo sameeyay matalan application layerkan markii presentation uu soo dhiibaa sessionka uu soo dhiibaa mid walba saas waaye ugu dambeyn halkaanay maray ayagoo bits ah oo 0101 ah markay marto ilaa iyo halkaan kale mid walba wixii uu kusoo daray matalan physicalka kii uu kusoo daray kana ka reebay kan wuxuu ka reebaa wixii uu kusoo daray macnaha data linkinga kusoo dartay ilaa iyo applicationkii ay gaartay datadii bes marka haddii matalan mararka qaarkood adoo waxaa laga yaabaa in markino computer kor fadhiisid file artaa sawir ah laakiin waxaa kuusoo baxaya mataqaanaa wax oo xarfana aan ahayn oo nooc kaleto oo qalafsan oo mataqaanaa waxba laga fahmi karin taas macnaha automatically waa inaad fahantaa in ay tahay presentation layerka cilad uu leeyahay waa presentationka waaye macnaha dhinaca presentation layerka haddaan gadaal u sheegno waxyaabaha matalan tusaalahaan sawirada jiifka oo kale mbeg oo kale iyo wixii lamida macnaha waa session layerka asaga shaqadiisa waxay tahay in markino sessionka ama xiriirka uu furo ama uu xiro matalan meel oo kale encryptionka kale kamida meela password oo ku galayso oo kaleeto maanta oo dhan way kuu furan tahay kaleeto matalan markii aad akhrinaysa meeshaas oo kaleeto hadhow log out aa sameynay daatada la diraa haddii data encrypted oo in la fahmay aysan rabin dhinacaas oo kale waxaa la dhihi karaa khadka uu fura maanta oo dhan hayaa intaan kore marka waxaa la yidhaha upper layer waxaa la yidhaha data la isku dhahaa datagram macnaha kulligood aa la isku dhahaa marar badan waliba marka laga hadlaa TCP modelka waxa waa TCP-ga asaga waxa waaye waa hal xabo ka wada dhigaa kuwan waa marka kuwa very interesting xiisaha badan oo inta badan shaqooyin runtii aad iyo aad badan la qabta dhinacan transport layerka markaa fiirisid waxa waaye waa meeshii oo ay ka bilaabanaysay mataqaanaa qaabkii wax oo baalkan loo gudbi lahaa waaye meeshaan laba protocol horta caan ah oo ku jira oo kala duwan mid kamid waxa waa UDP protocol iyo TCP protocol waaye mid walbana shaqo gooni u qabtaa wixii la dirayana macnaha markaasi ku kala calaamadeynaya TCP protocolka waa protocol runtii maaragtay waxaa la yidhahdaa reliable ama connection oriented halka UDP da uu ka yahay unreliable magac ahaan haddii reliable markaa maqasho mid laysku halay karo iyo unreliable midaan laysku halay karin xogaa waxaa isleedahay midaan laysku halay karin maxaa loo isticmaalaa laakiin mid walba faa'iidadiisa aad iyo aad wanaagsan uu leeyahay waxaa loo leeyahayna macnaha dhinaca kale connectionless iyo connection oriented ay kala yihiin TCP-ga macnaha marka la fiiriyo connection oriented waaye ka kaleeto UDP-ga connectionless waaye mana aha inaysan computeradii connectionless marka af soomaalida ku turjumo mid waxa waa inay xiriir computerada ka dhexeeya u baahan yahay midna uma baahna waa macnaheeda maahan inay computerada xiriir toosan lahayn laakiin midkan TCP-ga hubaal badan oo sameynaa maanta oo dhan daatada marka sideedaba la diraayo computerka ayadoo sideeda isku dhegan ma diraysid macnaha matalan file weyn aad diraysa aad u badan sawiro tira badan wax badan oo isku dhegan aad diraysaa computer suurtagal kuma ah marka hal mar in la wada diro saas daraadeed waa la jebiyaa qeybbaa loo jebiyaa computer markuu diraa qeyb uu jebinaa mid walba calaamad oo lambar u samaysanaa meeshaasoo sidii oo ku diraa TCP IP-ga marka lambar kasta oo dirto waxay ka sugaya jawaabiga waxay ka sugaya dhinacii kale oo computerka kale markuu helo oo inuu haddana soo yiraa okay lambarkaas waa helay matalan lambar waxaan soo diray backetkii afraadaan soo diray kan waa inuu soo yiraahdaa okay backetkii afraad waa helay shanaadaan sugaa kan markuu taas helo oo haddana kii shanaad oo diraa ama dabcan saas maahan laakiin dhowr oo isla diraa laakiin kan si soo u kala helo uu soo sheega marka wuxuu leeyahay kaasaan hadba sugaa kii uu sugaayey ninkan haddii uu dareemo mid oo diray inuu weli ka maqayo oo kan uu sugaayo mar labaad transmissionka oo mar labaad diraa taasaa marka waxay ka dhigaya macnaha inuu yahay reliable macnaha wax inay lumaan looguma talagelin waxay ku fiican tahay qolyaha mataqaanaa matalan file oo kala dira important ah FTP ku dira kaasoo kaleeto waa very important waa laakiin dhinaca kale UDP da oo asna transport layerkan ka shaqeeya waxa waaye connectionless ama unreliable wax kale looma dhahayo waxa waaye asagu malaha overheads tira badan iyo su-aalahan tirada badan oo maanta oo dhan hadba uu weydiinayo okay lambarkaasaan kuu soo diray kayga sugay macnaha hadalaas la dhaafsan waxaas tirada badan waxaa ku lumaya macnaha network resource oo isticmaalaya saas daraadeed kaas awoodda ma saara keliya waxa wax walba oo iska diraa haddii mataqaanaa xagga laga helo alxamdulilah haddii la waayana looma dhutina waa laga sii soconaa waa matalan kaasoo kale waxaa aad loogu isticmaalaa markaa video streaming oo kale la diraayo haddii video streaming la diraayo macnaha ma sameynayso mataqaanaa in dib loogu soo celiyo wixii waxay noqonaya wixii si isugu xigeen kasoo qaad live waay qofaa hadlaayay wariye hadlaayay waxaa laga yaabaa inay wax yar oo signalkii qaldamay bagdheg waa computer baalkan waa boodbooday ama waa baalkan wax yara boos ka baxay wixii yarka ahaay marka in dib loogu laabto haddana dib loo soo diro waxaa waaye caqligal ma ahan matalan markii wuxuu isla diray kasoo qaad wuxuu isla diray 10 11 12 13 14 intii markii meeshii tagtay waa la waayay waxaa la waayay kasoo qaad 13 la waayay
haddana wixii mar labaad dib loo soo celiyo xogaa caqligal ma ahan saas daraaddeed